السلام عليكم. وزارة عافيمات كإسرائيل waxa ay qiratay in 1437 ay dhaawacyihiin boqolaalkana lagu dilay gudaha Israa'iil. Muuqaalo yaab leh ayaa ka imanaya maanta magaalada Tel Aviv. Iran ciidanka kacaanka ilaalada waxa ay qaadeen weeraradii ugu cuslaa iyagoo adeegsanaya gantaalada ballistic missiles hypersonic iyo sidoo kale droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. macluumaad arrintaa ku saabsan iyo weeraradii ugu dambeeyay Iran ay ku beegsatay gudaha Israa'iil iyo ciidamada Israa'iil iyo Mareykanka oo iyagana magaaladii Tehran burbur weyn gaarsiiyay ayaan idiin haynaa. qodobada sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doonto iyana waxaa ka mid ah caasimadihii bariga dhexe dalalka khaliijka ayaa mar kale iyaguna Iran ay beegsatay. magaalada Dooxa dalka Qatar waxaa laga soo sheegayaa laba qarax oo waaweyn in laga maqlay dadii ay ku dhaawacmeen Abu Dhabi. sidoo kale waxaa lagu waramayaa in maanta mar kale ay beegsatay Iran. macluumaad arrintaa ku saabsan ayaan idiin haynaa. sidoo kale maanta waxaa soo baxay in ciidamada Mareykanka ay xalay beegsadeen markab ay leedahay dowladda Iran oo marayay badda caalamiga ah. Sri Lanka ayaa sheegtay inay soo badbaadisay dad ka mid ah dadkii saarnaa markabkaasi. 30 qof ayaa la xaqiijiyay in ay badbaadeen iyadoo guud ahaan dadka markabka saarnaana ay dhamaayeen 100 iyo dhowr qof. qiyaastii la sheegay inay gaarayeen 130 qof. dhowr iyo 80 waa ay dhinteen, qaar kalena waa dhaawac, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Iran uu sheegay inay ka shalayn doonaan Mareykanka. qodobada sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doonto iyana waxaa ka mid ah Reuters ayaa soo warisay iyadoo soo xiganaysa ilo ku dhow dowladda Azerbaijan in 2 qof ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay gantaalo in ay ku dhaceen airportka ku yaala magaalada Nakhchivan ee dalka Azerbaijan. laakiin maxay Iran arrintaa ka tiri? tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo hore la sheegay Iran iyana beegsatay gudaha dalka Turkiga. wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Iran oo arrintaasi ka hadlay ayaan idiin haynaa. ugu dambeyn maanta war yaab la ayaa taagan. maamulka Donald Trump waxay codsanayaan oo ay ka codsanayaan Kurdida Ciraaq iyo Iran inay dagaalka ku soo biiraan si loo rido maamulka Tehran. laakiin Kurdida maxay ku jawaabeen? sheeko cajiib ah ayaan idinkaga hayaa. muuqaalo yaab leh ayaa ka imanaya gudaha magaalada Tel Aviv kadib markii Iiraaniyiintu ay laba jibaareen weerarada ay ku wadaan gudaha Israa'iil. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Israa'iil waxa ay leedahay dhaawaca waxa uu hadda cagacagaynayaa 1437 waxaana warbixinta loogu noqonayaa wargeyska Jerusalem Post ee ka soo baxay Israa'iil, iyadoo boqolaal kalena ay dileen ciidamada Iiraaniyiinta. tani waa xaalad degdeg ah oo xaalad degdeg ayay gashay ayaa la leeyahay Israa'iil. waa musiibadii ugu darnayd ee soo martay Israa'iil sanadyadii ugu dambeeyay tani intii Israa'iil la aasaasay 1948kii. ma soo marin baa la leeyahay taariikhda Israa'iil muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal noocan oo kala dhibaato inta la egeysto. waxaa laga maqlayaa hareeraha iyo gudaha magaalada Tel Aviv qaraxyo aan kala go' lahayn. droneski iyo gantaalada Iran ayaa u noqday nalal dadku isku dhex arkaan, iyadoo guri walba oo gudaha Tel Aviv ku yaala hadda la leeyahay amni ma ahan. tani waxaa soo martay muddo aan fogeyn magaalada Gaza oo dadka reer Gaza ay ku noolaayeen dhulka gudihiisa. qaar waaye meel ay galaan. dadka reer Gaza uma diyaarsanayn godad ay ku dhuuntaan. laakiin warbixinta qaybteeda yaab kale ee ka imanaysa magaalada Tel Aviv waxa ay tahay wargeyska Jerusalem Post waxa uu leeyahay dadka dhaawacmay 1437 qaar badan oo ka mid ah waxa dhaawaca u sababay isbursiga ama isciriirsiga godadka dhulka hoostiisa marka ay ku ordayaan ama goobaha loo yaqaan sheltarada ee dugaalka loo doonto. waxaa arrimahan oo dhan sababay dadku waxay aamini laayihiin daaraha. waxaa muuqanaya burbur magaaladii weynayd ee Tel Aviv oo ay saraheeda iyo daaraheeda dhulka sii galayaan. xafiisyada dowladda waxaa iyagana ka muuqda ayaa la leeyahay burbur culus. waxaa muuqata musiibo weyn oo gaartay Tel Aviv. ma filanayn baa la leeyahay maamulka Netanyahu in arrintu heerkan gaarayso. dabcan dagaalka waa la filayay oo labada dhinac way isgaleen, laakiin in sidan xawligan Iran ay ku jawaabayso
waxaa intaasoo dhan ka daran israa'iiliyiintu waxay isticmaalayaan gantaalo qaali ah iyo daroonno sicirkooda aada u badan yahay. iiraaniyiintuna waxay isticmaalayaan drones aada u jaban. marka israa'iil droonka isticmaalayso iyo kan iiraan isticmaalayso qiimo maahan. haddana waxaa la leeyahay waxaa droneska soo isticmaalkeeda badan iiraaniyiinta. dhanka kale maraykanka waxay iyaguna maanta la arkayay burbur xooggan oo ay u geysteen magaalada Tehraan. waxaa la arkayay boqolaal dadka reer Iiraan oo gudaha magaalada Tehraan ka qaadaya dhaawaca dadkooda oo lagu burburiyay daaraha magaalada Tehraan gudaheeda. magaalada Tehraan waxay hadda noqotay magaalo shaqadii gabtay, dhaqaaqii gabtay. hadda waa furin dagaal si rasmi ah. iiraaniyiintu waxay u aqoonsadeen Tehraan inay tahay goob dagaal ama goob dagaalka uu toos uga socdo. waana sababta dadka reer Tehraan ay 80% hadda dowladda Iiraan sheegaysa in dadku ay ka baxeen. taas oo macnaheedu ay tahay waa goob laga hago dowladda dalka Iiraan, laakiin ma ahan meel dadweynuhu ay ku nool yihiin oo nololi ka socoto. xaaladdu meel adag ayay maraysaa labada dhinac. mana jirto wax waanwaana isku day nabadeed. laakiin maanta waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka. waxa uu sheegay in dadka la beegsanaya ama nidaamka la beegsanaya Iiraan ay tahay xulufadii ugu dhaweey dalka Ruushka. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda in Iiraan Sergey wuxuu leeyahay Ruushka waxay Iiraan ku taageeri doontaa ama ay u garab istaagi doontaa si walba oo suurtagal ah. macno walba oo aan garab ku siineynana waynu ku taageerana. waa hadalkii ugu weynaa taageera dhinaca Ruushka uga yimaada Iiraan. waaya saaxiibada qiimiga loo waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka. magaalooyinka bariga dhexe kuwoodii ugu magac weynaa Dooxa iyo Abu Dhabi waxa maanta mar kale ay martigeliyeen gantaalada iyo droneska dalka Iiraan. magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa laga maqlay laba qarax oo waaweyn sida Al Jazeera ay tabinayso, iyadoo la sheegay inay dadi ku dhaawacmeen. wasaaradda difaaca dalka Qatar waxa ay amartay in la kordhiyo oo la xoojiyo difaaca hawada dalka Qatar. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Iiraan oo ka hadlay weeraradii u dambeeyay oo ay ku beegsanayaan dowladda Iiraan waxa ay sheegay in dowladda Iiraan siyaasadeeda aysan ka mid ahayn in dariska la beegsado, laakiin waxa uu yiri waxaynu beegsanaynaa saldhigyada cadowga, oo macnaheedu uu yahay dal walba oo saldhig uu ku leeyahay Maraykanka ama looga soo duulay Iiraan waanu beegsanaynaa. taasi kuma jirto gorgortanka. xaaladdu meel adag ayay ku maraysaa dalalka Khaliijka. waxay galeen dagaal aysan iyagu qorshaysnin. dhinaca kale xitaa Maraykanka, wargeyska The Economy ee ka soo baxa Maraykanka waxa uu leeyahay Maraykanka maamulka Donald Trump waxa ay galeen dagaal aysan qorshaynin. macnaha dagaal aan qorshaha ugu jirin, laga sii fikirin, la dejinin, istaraatiijiyadiis aan laga shaqaynin. dhinaca kale waxa iyana soo baxaya war yaab leh oo sheegaya sida ay qoraysa Reuters ayna ka soo warinayso wargeysyada ka soo baxa dalka Azerbaijan. Azerbaijan waxaa ku dhaawacmay 2 qof kadib markii gantaal lagu dhuftay aeroboortka magaalada Nakhchivan ee dalkaasi. droonkan Iiraan ilaa hadda ma sheegan in iyada ka dambeysay, mana dhihin inaga ayaa ka dambayno oo qaadnay weerarkan. laakiin waxa ay sheegeen sida wasiirka arrimaha dibadda dalka ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan laga soo xigtay wuxuu leeyahay annaga siyaasadana kama mid ahan weerarka iyo beegsashada dariska, laakiin waan baaraynaa ayuu leeyahay, laakiin annaga ma nihin baaritaan dheeraadna waan ku samaynaynaa. dhinaca kale weerarkan waxa uu ku soo aadayaa lagu beegsaday aeroboortka magaalada Nakhchivan xilli Turkiga la sheegay in la beegsaday, Iiraanna ay diiday shalay. Iiraan waxay sheegtay inay iyada ka dambaynin gantaaladii lagu dhuftay dalka Turkiga. hore waxay u sheegay ama lagu beegsadaan Iiraan, horena waxay u sheegtay in weerarkii lagu qaaday ceelasha gaaska dalka Sacuudiga inay shaqo ku lahayn. meeshan waxaa muuqato gacan saddexaad oo rabta in dalalka Khaliijka iyo dalalka dariska Iiraan inay madaxa isku geliso. dhinaca kale weerarkii lagu beegsaday saldhigga Britain ay ku leedahay dalka Cyprus way diiday Ingiriiska
in droniska lagu dhuftay saldhigeeda ama lagu beegsaday inay shaqo ku leedahay Iran taas oo macnaheedu ay tahay in xiisad kale ay doonayaan Israa'iiliintu in ay abuuraan si dagaalka Iran ka dhanka loo xoojiyo waya saaxiibada qiimiga law qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo xireynaa waxa taagan waryaab leh waxa soo baxday in la beegsaday markab uu ay leedahay dalka Iran oo marayay international water badda caalamiga ah badda biyaha caalamiga ayuu marayay markabkan waxaana laga leeyahay dalka Iran wuxuuna ahaa laba markab oo maraakiibta dalka Iran oo ka maqnaa gudaha dalkaasi ka hor inta uusan bilaabanin dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka oo dhana iyo Iran markabkan waxa badbaadiyay qaar kamid ah dadkii saarnaa dawladda dalka Sri Lanka oo qaar kamid ah dhaawacii dadkii maraakiibta saarnaa ee reer Iran dhigtay isbitaalada dalka Sri Lanka iyadoo qaar kale ee badbaaday iyaguna laga dejiyay markabkaasi iyadoo la sheegay qaar kamid ah dadkii markabka saarnaana inay dhinteen guud ahaan tirada markabka saarnayd waa 130 Iraniyiina wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Aqraji waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka shalayn doonaan beegsashada markabkooda maraya biyaha caalamiga ay beegsadeen dhinaca kale xogayaha dagaalka dalka Mareykanka Peter Hegseth ayaa sheegay in ay beegsadeen markab ay leedahay dawladda dalka Iran oo mooday inuu ku badbaadayo waa sida Hegseth uu leeyahay biyaha caalamiga ah si kastaba ha noqotee Mareykanka Iran waxay u muuqataa inay isku beegsanayaan meel walba oo xitaa ka baxsan Israa'iil iyo Iran iyo bariga dhexe dhinaca kale war ka soo baxay ama ay qorayaan maanta warbaahinta oo kamida warka ugu yaabka badan ee ku aadan dagaalka ka socda bariga dhexe maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu waramayaa inuu codsi u gudbiyay kurdida Iraq iyo Iran sida uu qoray wargeyska Politico waxa uu codsaday maamulka Donald Trump kurdida inay dagaalka ku soo biiraan waliba dhanka dhulka si dagaalka ay u ballaariyaan maamulka Tehran xilka looga qaado awoodda looga xayuubiyo laakiin waxa cajiib noqotay in ilaa iyo hadda kurdidu ay diideen inay dagaalka galaan waxay sheegeen kurdida inay doonayeen dagaalkan inay qayb ka noqoto gaar ahaan hogaamiyaha kurdida waxa uu sheegay in uu ku bixinayo dadaal walba sidii uu uga badbaadin lahaa kurdida inay qayb ka noqdaan dagaalkan Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qaadeen dalka Iran waxa ay Mareykanka u ballan qaadeen haddii kurdidu dagaalka ay ku soo biiraan in dhanka cirka iyagu ay ka caawin doonaan sidoo kale ay siin doonaan kaalmo iyo taageero rasmi ah ilaa inta ay kala wareegayaan qaybta ugu badan awoodda dalka Iran Mareykanka Israa'iil ay hadda u muuqdo inay dareensan yihiin in dagaalka uusan u fududayn sida xisaabta ay iskugu dhufteen markii hore oo ahayd in laga dilo hogaamiyaasha dalka Iran kadibna ay Iraniyiintu ogolaadaan wada hadal deetana marka Iran ay ogolaato inay ka tanaasusho samaysashada hubka hypersoniga ama plastic missileska dood hadda kama jirto caalamka dhan waa la isku raacsan yahay in Iran xitaa hay'adii nuclearka adduunka ee loo yaqaan IAEA ayaa diiday in Iran ay haysato nuclear ama xitaa ay u dhowdahay samaysashada ama ay jirin cadeymo cadcad oo rasmi ah oo muujinaya in Iran ay samaysatay ama ay ku dhowdahay samaysashada hubka nuclearka sidaa darteed dagaalkan waxay aaminsan yihiin qaramada midoobay iyo dawladaha xulufada adduunka oo ay ku jiraan Britain xulufada laha Mareykanka ay ku jiraan Britain Canada iyo dhammaan waxa ay sheegeen in dagaalkan ay ugu arkaan inuusan ahayn dagaal si sharciya ku bilowday gabi ahaan ayagu ka gaabsadeen ilaa iyo xiriirka Mareykanka iyo Spain oo gabi ahaan xumaaday dadweynaha reer Yurub hadda waxa socda campaign weyn iyo taageero weyn oo loo muujinayo hogaamiyaha dalka Spain oo ay toos iskugu dhaceen Sanchez Petro madaxweyne Donald Trump kadib markii Sanchez Petro uu banaanka la soo istaagay dagaalka lagu qaaday Iran inuu yahay mid sharci darro ah Mareykankana uu ku degdegay Spain gabi ahaan ay diidan tahay dagaalka khudbad u jeediyay Sanchez waxa uu sheegay in Spain ay u taagan tahay ilaalinta shuruucda caalamiga iyo sharciga Spain u yaala saaxiibada qiimiga leh barnaamijkii galabnimo oo aad maanta kala socoteen kow Somali Media qaybta waa inaga inta tani barnaamijka xiga nabadgelyada Ilaahay dushina haat. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.